airport iga soo qaad, hotelka iga soo qaad, mallka aan raana ka soo gato ila soo gad inuusan airport ka soo gelin wax xafadiisa iska joog uu u maleeyay 29 maadaama leeyahay maalinkii inuu soo wabariisto oo bisha 29 ka ahayd habeenkii dambe markuu airport iska markii la yiraahdo adiga diyaaradaadii xalay dadkeedii oo Soomaaliya joogaan badan taas oo keenaysa maxaa la yiraahdaa dadka dariska la ah qoysaska Soomaaliyeed inay ka soo sheegtaan tiro badnida Soomaalida marti badnida qaylada iyo buuqa gaar ahaan habeenkii بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan maanta ka hadli doonaa nolosha Soomaalida Turkiga markaan ka hadlayno nolosha Soomaalida Turkiga waxaan la jeednaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee Turkiga ku dhaqan markii ugu horeysay oo bulshada Soomaaliyeed ay aad u bilowday inay Turkiga deegaan ku yeelato waxay ahayd sanadihii 2010 ilaa 2012 laakiin tirada ugu badan oo Soomaaliyeed waxay halkaasi tageen intii u dhaxaysay 2013 ilaa 2019 xilligii waqtiga corona xilliyadaas aan soo sheegaynay dadyo tagayay way kala duwanaayeen marka aan ka hadlayno 2010 ilaa 2011 dadkii ugu horeeyay tagay waxay u badnaayeen arday deeq waxbarasho ka heshay dawladda Turkiga iyo hay'adaha waxbarashada ka shaqeeya ee dalka Turkiga ee aan dawliga ahayn intaas ka dambeysay 2014 wixii ka dambeeyay waxaa bilowday dadyo dalxiis ganacsi caafimaad iyo waxbarasho iyaga iska bixinaya u tagay dalka Turkiga waxaa jirta marka sababo keentay in dadka Soomaaliyeed ay halkaas door bidaan xilliyadii ka horeysay waxa waxbarashada inta ugu badan loo aadi jiray Malaysia, Pakistan, Sudan, Masar iyo wixii la halmaala maadaama xilligaas dawladda Turkiga iyo dawladda Soomaaliya ay heshiis galeen gaar ahaan dawladda Turkiga ay bilowday inay ballaariso joogitaankeeda iyo maxaa la yiraahdaa xiriirkeeda dawladaha Afrika ee la leedahay waxaa bilowday fursado fara badan oo deeq waxbarasho iyo taageero iyo heshiisyo laba dhinaceed la ah oo dawladaha u dhaxeeya saas daraadeed waxaa marka fududaatay in ardaydii ay si fudud fursado waxbarasho u helaan ama jaamacadaha halkaas ku yaala inay admission ama maxaa la yiraahdaa qabuul inay ka helaan marka laga soo tago xiriirkaas waxbarashada tagitaanka ka dhashay waxaa sidoo kale jiray qoysas dad ganacsato ah oo door bidaya inay deegaan ka dhigtaan dalka Turkiga iyagoo maxaa la yiraahdaa ugu xilanayay dawladda dalka Turkiga oo dadweynihiisu ay yihiin dad muslim ah dal masaajidadu ay badan tahay oo maxaa la yiraahdaa cibaadaysiga iyo mashkilo weyn ay ka jirin waxaa sidoo kale jiray dadyo aad u fara badan oo ka soo guurayay Yurub iyo waqooyiga America oo nolol ahaan iyo dhaqan ahaan iyo dhaqaale ahaan door bidayay dalka Turkiga maadaama noloshu ay ka raqiisan tahay tan dalyowgii ay hore ugu noolaayeen marka aan fiirinayno habdhaqanka bulshada Soomaaliyeed ee Turkiga iyo sida ay ula falgalayaan bulshooyinka ay dariska leeyihiin ama ay la nool yihiin waxyaabaha aan tilmaami karno waxaa ka mid ah in dadyo fara badan ay ganacsiga ka samaysteen xilliyadii hore waxaa laga yaabaa in ganacsiga Soomaalidu ay Turkiga ka samaysanayso inuu ku koobnaa ganacsi wax dhoofin ah oo uu yahay maxaa la yiraahdaa Turkiga wax ka keen Soomaaliya, Ethiopia, Kenya in wax la geeyo oo asaaskiisu ahaa hadda laakiin magaalooyinka maxaa la yiraahdaa jaaliyadaha Soomaaliyeed ay xoog ku leeyihiin gaar ahaan magaalooyinka waaweyn oo metropolitan ka yiraahdo sida Istanbul iyo Ankara oo kale waxaa dhacda in maxaa la yiraahdaa maqaayado timajarayaal hoteelo maxaa la yiraahdaa oo Soomaaliyeed inay bilowdaan dukaamo maxaa dad Soomaaliyeed ka shaqeynayaan inay bilowdaan dadka Soomaaliyeed oo xitaa dukaamada Turkiga hoteelada Turkiga maqaayadaha ka shaqeynayaan inay soo bataan marka in labadii bulsho isdhexgal fiican inuu dhexmaro dhanka kale waxaa jirta magaalooyinka waaweyn gaar ahaan in dadku ay bilaabaan inay guryo gataan taasoo aad u soo badanaysa in guryo fara badan la kiraysto oo qoysas fara badan halkaas la dejiyo
waxaa sidoo kale jirta dadyo caafimaad u imaada oo laga yaabo qaniimo dalkii ama Afrika aan lagu samayn karin inay halkaas u doorbidaan. waxaa jirta dad xilliyada fasax ay yihiin gaar ahaan dadka eedaha u shaqeeya shaqaalaha dowladda iyo wixii lamid ah oo raba in waqtiyada fasaxooda inay meel degan oo nabad ah oo aysan amnigooda u baqayn in waqti kusoo qaataan inay halkaas tagaan. marka guud ahaan noocay rabta ahaatee marka laga hadlaayo la falgalkooda ama la dhaqankooda dadyowga maxaa la yidhaahdaa martida ay u yihiin ee Turkiga waxaa laga yaabaa caqabado qaarkood inay ku hareeraysan tahay. caqabada ugu horeysa oo jaaliyada Soomaaliyeed ama dadyowga dalxiiska u tagaaya soo wajahda waxaa kamid ah caqabada luqadda. sababtuna waxay tahay ardayda qasabka ay ku tahay inay af Turki wax ku bartaan marka laga soo reebo inta kale waxaa laga yaabaa inaysan aad mas'uuliyad isaga saarin ama isku dhibin inay af Turki bartaan. bulshada Turkigana waxay u badan tahay badankeeda inay kaliya yaqaanaan luqadooda maxaa la yiraahdaa sheekayna aysan aqoonin Carabi fara badan af Ingiriis fara badan ama luqad kale taasoo keenaysa marka in mararka qaarkood isfaham darro laga fursan karo inay dhex marto labadii bulsho isla nooleen. waxaa sidoo kale jirta in dadyowga jaaliyada ay halkaas degaaya inaysan xasaasiyad fara badan ka muujinin badanaa dhaqanka bulshada ay la nool yihiin waxyaabaha ay tahay in la xeeriyo waxyaabaha ceebta ah waxyaabaha anshaxumada ah iyo wixii lamid ah. tusaale ahaan masaajidda marka la joogo waxaa arkaysaa odayaasha qaarkood oo Soomaaliya ka yimid in ay cagahooda oo qoyan in masaajidkii roogiisa inay kula socdaan. marka aad joogtid masaajid Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa dhaqankaas dhaqan aan la ceebaysanin aan la diidin inuu yahay halkaas laakiin maadaama jawigu uu isbedelo qabow ay noqoto waxaa laga yaabaa cagahaas qoyan oo shumaca kula soconaysa inay caafimaad darro iyo waxyaabo kala dhaliso. marka qofkii Soomaaliyeed markii lagu qayliyan wuxuu u qaadanayaa in isaga si gaar ah loo beegsanayo maxaa la yiraahdaa cadowtooyo loo muujinayo laakiin qofka kalena waxay ka tahay laga yaabo inuu yahay sheegeen qofkii nadaafadda qaabilsanaa oo masaajidka inay dhib ku tahay uu dareemayo. waxyaabaha kaloo la sheegi karo waxaa kamid ah tusaale ahaan in la arko dhalinyaro mise dad caday lasoo fuulayo oo kale bas inkastoo hadda xiliyadan dambe maxaa la yiraahdaa ay yar yihiin in la cadaydo marka Soomaaliya la joogo oo kale bulshada badankeeda waxaa caadi u aragtaa laakiin magaalooyinka markaa joogta xataa Soomaaliya gaari la soo raacdid maxaa la yiraahdaa sheegeen meel bulsho inaad caday la soo istaagtid dhaqan fiican ma aha. marka waxyaabaha la arko ay kamid tahay waxyaabaha sidoo kale in la qiimeeyo waxaa kamid ah hab nololeedka bulshada Soomaaliyeed oo kooxda u samaysan qof walba iyo qaraabadiisa iyo asxaabtiisa booqashooyinka oo fara badan taas oo keenaysa maxaa la yiraahdaa dadka dariska la ah qoysaska Soomaaliyeed inay kasoo sheegtaan tiro badnida Soomaalida marti badnida qaylada iyo buuqa gaar ahaan habeenkii. marka iyadana waxay keenaysaa waxyaabaha oo isfaham darrada bulshooyinka keeni kara ay ka mid tahay. marka bulshada Soomaaliyeed halkaas ku nool marka waxyaabahaas waxaa loogu fursan karaa inay ku dadaasho in bulshadan ay la nooshahay sidii ay isku fahmi lahaayeen sidii ay integration ay ku samayn lahaayeen inay lagu dadaalo sababtoo ah bulsho kasta dhaqankeeda iyo waxyaabaha ay xeerinayso in la qadariyay tahay haddii iyada meesha ay ku nooshahay la joogo. adiga haddii aad Soomaali tahay oo qof ajnabi ah uu kugu imaado dalkaaga tusaale ahaan madaxda qaarkood culimada qaarkood markii ay la kulmayaan qof ajnabi ah tusaale ahaan oo haween ah oo kale waxaa aragtaa tusaale ahaan qof ambassador ah oo madaxa soo daboolanayo oo kale sidaas la mid ah. marka adigana markaad tahay qof diaspora oo Turkiga ku nool masaajid markaad galaysid inaad iskaarshaha wadatid markaad soo weysatid cagaha inaad iska soo tirtirtid oo soo qallajisid waxyaabo waxay kamid tahay adiga inaad qadarisid ay tahay oo laga fursan karo inay isfaham darro keenaan. intaas kadib markaan ka hadlayno noocyada oo dalxiiska iyo dadka u yimaada waxaa arkaysaa in adduunka waxyaabo la isku waafaqsan inay jiraan. tusaale ahaan waxaa laga yaabaa in dalxiiska aad xilli shaqo oo adag inay kusoo martay oo aad rabtid inaad nasatid marka dalxiiskaaga inuu ku koobnaado inaad hotel meel maxaa la yiraahdaa sheeg comfortable ah oo aad u fiican taad degtid kaliga ama qoyskaaga gaarka adiga iyo xaaskaaga inaad waqti wada qaadataan inaad rabtid nooc dalxiiska oo la fahmi karo waaye. waxaa sidoo kale jirta in maxaa la yiraahdaa qofka uu rabo in waqti uu la qaato dabeecadda marka inuu tago deegaano meelaha dadku ay ku badan yihiin ka fog buuro dushooda kayma dhexdooda
maxaa la yiraahdaa inuu tago maxaa la yiraahdaa laagag agtooda oo kale inuu tago waqti ku soo qaato oo meeshaas marka isaga iyo dabeecadii inay waqti soo qaataan dab inuu shito maxaa la yiraahdaa noloshii qadiimiga ahayd oo kale dib inuu ugu noqdo waxaa sidoo kale dhici kartaa qofka inuu rabo in maxaa la yiraahdaa sheegeen bulsho kala duwan inuu dhex galo meelaha loo dalxiis tago gaar ahaan dalxiiska xeebaha meelaha lagu dabaasho dadku ay aad u yimaadaan inuu tago inuu rabo laga yaabaa mararka qaarkood waxaa laga yaabaa dalxiiska qofka inuu rabo inuu soo arko meelo taariikhi ah matxafyada inuu soo booqdo waxyaabaha taariikhiga ah yaala inuu soo arko oo marka kaydkiisa aqoonta maxaa la yiraahdaa sheeg jaamacad iskuul uu kusoo dhigtay inuu khibrad dheeri ah inuu ku beeriyo inuu u baahan yahay marka qaarkood waxaa dhici karta xataa inuu dalxiiska noqdo dalxiis caafimaad qofkan xanuun gaar ah oo haya ma jira laakiin wuxuu rabaa inuu check up soo sameeyo magaalooyin kala duwan inuu soo arko inuu isaga sameeyo laakiin bulshada Soomaaliyeed marka usoo noqotid waxaa arkaysa qofka dalxiiskiisa inuusan ujeedo gaar ah lahayn inuu toban ujeedo leeyahay mise inuusan ujeedo gaar ah lahayn waxaa dhacaysa marka in qofka markuu soo baxaba inuu maxaa la yiraahdaa sheegan dad Soomaaliyeed oo meel ku degan inuu kusoo dul dego inuusan xataa hotel degin dad meeshii degan inuu culays ku noqdo waxaa dhici kartaa in maxaa la lahaa bil bar uu joogo laakiin bishaas iyo barka uu joogo dhan mall iyo shaah maxaa la yiraahdaa dad uu hore u yaqaanay la lacabo iyo shopping inay maxaa la yiraahdaa ay isku noqoto marka dalxiiska noocaas oo kale ah qofkan inay kharash badan uga baxdo oo macna ahaan waxay noqonaysaa aan wax badan ku soo kordhin dalxiiska waxyaabaha asaasiga waxaa ka mid ah habka qofku uu u safraayo ama safarkiisa uu agaasimayo bulshada Soomaaliyeed badankeeda markaad fiirisid gaar ahaan dadyoga mardhoofka ah xitaa heer kastoo aqoon uu gaarsiisan yahay waxaa arkaysa inaysan ku jirin kalsooni inuusan akhrinaynin maxaa la yiraahdaa instructionski waxyaabaha meelaha ku yaala qoraalada inuu ku dhaho kale maalin hebel saacad hebel aan soo dagayaa airportka igu imow oo iqaad oo meel igey oo hotel igey intaasoo dhan xitaa haddii u baahan yahay in airportka laga qaado waxaa jirta dad diblomaasiyiin oo saas dhahay waxaa laga yaabaa inuu xataa isagoo maxaa la yiraahdaa Muqdisho jooga ama Hargeysa jooga ama Boosaaso jooga qolkiisa isagoo jooga inuu airportka qofkii ka qaadan lahaa telefoonkiisa inuu reservation iyo ka samayn karo ka agaasimi karo laakiin fahamkaas oo kale inuusan jirin inuusan ku kalsoonayn nidaamyada adduunka oo dalxiiska iyo maxaa la yiraahdaa sheekada safarada fududeynaya saacadaha safarka oo kale markay aragtid in dadku aysan aad u akhrinin tikadhada inaysan controlin mararka qaarkood nidaamkan saacadaha 24 saacadood ah inaysan dadku maxaa la yiraahdaa ku baraarugsanayn waxyaabaha ugu badan oo dhaca waxaa ka mid ah diyaaradda oo Soomaaliya usoo dhoofta xamar imaata Turkish Airlines waxaa laga yaabaa safaradeeda inay midnight yihiin saqa dhexe laga yaabo 12 iyo bar oo kale inay soo dhoofayso marka qofka in la yiraahdo kale waxaa dhoofaysaa 29 bisha tobnaad 0030 in la yiraahdo kale 12 iyo bar oo saqa dhexe waxaa laga yaabaa qofkan in habeenkii fiidkii 28 bisha ahayd inuusan airport soo galin uu xaafadiisa ka joogo uu u maleeyo 29 maadaama leeyahay maalinkii inuu soo warbaristo oo bisha 29 ka ahayd habeenkii dambe markuu airport keeno markii la yiraahdo adiga diyaaradaadii xalay dadkeedii oo Soomaaliya joogaan maxay tahay tantii ku xigtay waay oo qofkii marka mushkilad uu kala soo kulmo tikitkii inuu ka gubto ama siyaabo kale waxaa sidoo kale kamid waxyaabaha aysan ku feejignayn noocyada tikidhada ay goosanayaan qaarkood waxaa laga yaabaa inuu yahay promotion oo laga yaabo qiimihiisa inuu raqiis yahay laakiin adigana inaadan xuquuq weyn lahayn haddii tikidkaagu isbedelo inaadan bedeli karin haddaa bedelaysa in ever uu kasoo bilaabanayo waxyaabahaas oo kale inaysan ku baraarugsanayn bilowgii in uu rabo habka ugu fudud ugu raqiisan oo tikid loo qaadan karo hadhowna inuu rabo flexibility ugu badan maxaa la yiraahdaa qofka uu heli karo waxaa ka mid ah sheeg waxyaabaha oo caqabadaha ka imaanaya oo habka safarka la xiriira qofka inuusan isku toosnayn gaar ahaan boorsadiisa marka laga bilaabo qofka Soomaaliyeed ee safraya xitaa hadduu isbuuc maqnaanayo inuu 5 boorso wato oo waaweyn hadhow mar walba la kiila ay usoo baxday wax ma kugu darsan karaa marka gaar ahaan dadka xaggaas ka soo safraya oo kale in kuwa inta ka safraya si isla in dadku ay yihiin maxaa la yiraahdaa sheegan freelance cargo shirkad oo kale inuu yahay qofka maanta oo dhan 20 kiilada iskale 30 kiilana waxaa iskale sheeg qaraabe iyo tol
iyo asxaab oo aad maxaa la yiraahdaa sheeg meesha geynays marka guud ahaan in dadkii aysan isku toosnayn instructionska inaysan akhrinaynin maxaa la yiraahdaa kalsooni weyn inaysan jirin waxa arkaysa qof Shiinees maxaa la yiraahdaa sheeg Japanese Korean oo laga yaabo weligiis alihiis inuusan Istanbul soo arkin in inta maxaa la yiraahdaa wadankiisa markuu ka soo baxay map intuu soo qaato uu soo qorto 10 meelood uu rabo inuu booqdo uu maanta dhan ku weydiinayo where is Sultan Ahmed where is Blue Mosque waxaas laakiin qofka Soomaaliyeed uu ku leeyahay xitaa meeshuu rabo ha joogee inuu ku dhahayo maxaa la yiraahdaa levelku rabo aqoonta gaarsiisnado airportka iga soo qaad hotelka iga soo qaad mallka igay mallka yarana ka soo gato ila soo gad isbitaalka iraac حتى قف هدوم محلي رح قاركود لقيها بيني محلي رح شيء multilingual oo luqado fara badan Carabi Ingiriis uu ku hadli karo marka wax kale oo sababeyn karana ma jirto oo aysan ka ahayn maxalli raahdaa kalsooni daro gabagabadii inkastoo la dhaqanka Soomaalida iyo Turkiga caqabadahaas aan soo sheegnay ka jiraan laakiin bulshooyinka Soomaaliyeed ee halkaas ku nool waxay wadankii ku soo kordhiyeen lacag fara badan guryo fara badan ay gateen ganacsi fara badan ay ka sameeyeen waxaan marka ku soo go'dooyin karnaa dhowr talo kow in ardayda Soomaaliyeed halkaas wax ka baranaysa in laga fakaro in dadooda aad u yar tahay oo aysan jirin qof maxaa la yiraahdaa waalidkooda ama ay ka baqayaan ama maxaa la yiraahdaa hagaaya in la soo diro ardaydaas oo laga yaabo inay waxbarashada ku fashilaan noloshooda ku saaqidaan waxa sidoo kale lagu dadaali karaa dadka in la wacyigeliyo intaysan safar soo galin way ogaadaan waxyaabaha ay la kulmi karaan ugu dambeyn waxyaabaha la tilmaami karo waxaa kamid in dadku maadaama bulsho cusub ay la kulmayaan inay la furnaadaan inay maxaa la yiraahdaa maskax furnaadaan oo isku dayaan inay wax soo kororsadaan wax cusub inay bartaan inay isku dayaan in xeerarka maxaa la yiraahdaa ha ahaadaan kuwa maxaa la yiraahdaa dowladda ay soo rogayso iyo waxyaabaha bulshada dhaqanka ahba in la ixtiraamo si isla dhaqanka labada bulshada uu noqdo mid aad u fudud oo waara aad iyo aad u mahadsantihiin